markana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii galka baarista waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf. dabayaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii xanuunka covid-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horreeyay laga diiwaan geliyey 16 bishii Maarso 2020 inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayay daafaha dunida. ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan 21,000 oo kiis iyo dhimasho dhan 180. hase yeeshee waxaa soo baxaya in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka covid-19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 jeer ilaa 10 jeer ka badan yihiin tirada rasmi ahaan loo shaaciyey. daraasad cusub oo laga sameeyey dhimashada covid-19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 11,800 lixdii bilood ee ugu horreysay 2020 oo keliya. daraasaddan waxaa dhowaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases. khubarada samaysay daraasaddan waxay adeegsadeen teknoolojiyo casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, waraysiyo iyo macluumaad kale. Cabdixamiid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista samaysay. waxa uu cilmi baare ka yahay jaamacadda caafimaadka iyo daawooyinka wadamada kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine. maxaa sameynay cilmibaariskan sanadkii hore 2020 November. sideed u samayseen? maxaa isticmaalnay dhowr astaan. maxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaalo maamulka Muqdisho. kadibna maxaa sameynay study kale oo qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen ka hortag ahaan covid-19. qaybta saddexaadna maxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha. markaas la imaanay maxaa la dhahaa natiijadan oo hadda warqadda ka heli kartiin. okay, marka natiijada soo baxday waa maxay? natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay covid-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dawladda soo saartay. hadda tirada dadka oo dawladda soo saartay maxaa dhintay 1,100 qof wadanka dhan haddaana fiiriyo. laakiin cilmibaariskeena maxayna tustay in xamar bas 6 bilood koowaad oo cudurkan soo galay wadanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeyo 3,000 ilaa 11,000 oo qof. haddii tiradani ay sax tahay waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka covid-19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnayd diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Cabdixamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan. anaga maxaa fiirinay waxa la satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadii hore. markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii tobnaad 2020. markaasna waa maxaa dhahay cabirna mise waa barbar dhignay tirada dadka la duugay sanadii hore iyo tirada dadka la duugay covid kadib. markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay 6 bilood oo 2020 maxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadii hore. markaasaa ogaanay saamaynta ku leedahay maxaa dhahaa bulshada. tirakoobtan ka soo baxday qiimayntiina daraasadiina waa qiyaas oon Soomaaliya ma aha tiro sax ah inay dadka intaa le ku dhinteen. waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. sidii anaga garanayno ma la sameyn wax la dhaho census oo kooban oo dadka dhanna tiriyey. markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada. markaasna maxaa saarnay xisaabtan. marka labadaas maxaa la dhahaa tira isku daray baa ogaanay dadka dhintay. hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasaddan kuma wada kalsoona.
madaxa hay-adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinaysa daraasadani. I think that this is a scientific exercise, and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However, waxa uu yidhi waxa ila tahay waa daraasad cilmi ku salaysan. Dabcan waan ognahay ayuu yidhi in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya. Hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan ayuu yidhi wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayay. waxaan dhihi lahaa ayuu yidhi wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. waxa uu yidhi waa hab cilmiyeysan oo wax loo sameeyo. hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay cisbitaalada kaliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso. I think that the truth might be in between, because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government. waxa uu yidhi waxay ila tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. waa suurtagal ayuu yidhi in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin, sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda. macluumaadkaasina ma soo gaadho diiwaangelinta dowladda. dhibkuse waxa uu ka jira ayuu yidhi ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. caqabadda ugu weyn ee naxadidaysana waa taas ayuu yidhi. waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. inay run tahay waa suurtagal ayuu yidhi, inaysan run ahaynna waa suurtagal. sidoo kale waa lambar aad uga tiro badan ayuu yidhi kan ay dowladdu soo tabinayso. waxay ila tahay ayuu yidhi inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. waddamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan ayuu yidhi tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sannadihii ka horreeyey si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aad u kala badan. waxaan soo dhoweynayaa ayuu yidhi daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga warramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in 100 kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan 5 qof ay u dhinteen cudurka. isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi Look, at this point in time, we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19, there is a waxa uu yidhi xilligan waxaan dareensannahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba. taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan 5 qof ay u dhintaan COVID-19. qiyaastan ayaan hadda ku soconnaa ayuu yidhi. waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah ayuu yidhi dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. hase yeeshee waxaad ku arki kartaa ayuu yidhi waddamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Ameerika. taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa ayuu yidhi tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto waddamada kale. mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr. Maxamed Maxamuud Fuje waa dhakhtar cudurrada guud ah, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya. daraasaddu horta waa daraasad aad iyo aad cilmi ku qontato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan barinka dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 uu u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuusa dhicin intaa cudurku dilaacin ka hor wixii jiray iyo kadib wixii jiray. marka si studigan oo mid lamid ah hadda kahor waxaa laga sameeyey Yemen. marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technology-ga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leegtahay. marka daraasad cilmiyeysan
oo fiican waayo. marka yaa runta u dhow? yaa runta u dhow, runta waxaa u dhow midka qabuuraha tegay oo tiriyey, satellite imageryga ku sameeyey, ogaaday in inta ay la eg tahay iyo inta baaxaddu ay la eg tahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo isagu buuggiisa la kala baxay oo wixii jira sheegay. marka differencegu waa kaasaa. waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo, laakiin taasi kuma siinayso dadka ama waxay u dhinteen covid-19kii, mase shubanay u dhinteen, malaria u dhinteen, wax kale u dhinteen, lama caddayntaasi ma jirto. systemka adduunka ka jiraa waxay tahay qof hadduu dhinto lama duugi karo ilaa dhakhtar uu caddeeyo sababta u dhintay. qofka marka taariikhdiisa la raacaya waxbaa la ogaan karaya. annaga hadda taasi ma jirto. ila qofka hadduu dhinto waa naga dhintay, horaan ka duuganayna. marka waxaan isleeyahay anugu systemka waxaa u dhow midka aada iyo aad si gaara u fiirshay waa inta dhimashadu la eg tahay. sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho covid-19? haddaba taasi waa su-aasha aan ka jawaabay oo iri dadka qabuurihii ayagu horta waxay xisaabinayaan qabuurahani space ay leeyihin, baaxad waxaa jirta calaamadsan oo qabuuraha loogu talagalay. jira barakaad qayb bay samaysay, halkaasaan ugu talagalnay tiri deeda u samaysay ama waxbay calaamaday ku samaysay. imagku halkaasuu qabanaya. waa sida anay la tahay hadda anu aqoon gaar uga leeyahay. imagka marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay 10 xabaale ay ku jirtay 10 beri kadib xabaalihii warmeeqay gaareen, ma intoodii joogaan mase waa ka tiraba, laakiin ma cadday karaan inay tahay covid-19 dad u dhintay. laakiin waxaa halkaas laga keenaya cudur dilaac baa jiray, adduunka dhan ka jiray, dad badan laynhaya, dad badan ku dhacaya, sidaasaa loo qiyaasay. mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aada u faafay oo dadka laynaya uu jiro, waxaa la fiirinaya marka waqti intuusa asagoo dhacin ka hor meeqay ahaan jireen korriimada numberka had iyo jeer la geeyaa meesha. haddase haddii awal 10 qof la gey jiray oo hadda 20 qof 30 qof la geeyo waa iska caddaa inay intaas ay tahay waxa soo kordhay oo excess mortalityga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka. waa iska assumption, waa malayn hadda maahane nin gacanta dab u geli karaa ma jiro dhihi karaa kan covid-19 waa iyaga dhan. laakiin waa farsamo la isticmaalo, waa farsamo wax lagu ogaado. soomaaliya oo dhan ba hadda dadkeeda markii la qiyaasahayey technologyga iyo farsamada la isticmaalo waxaa ka mid ah imagerygaas diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miya dhidig miya, laakiin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa. guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryaha ku taalla. marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo weye, ayadayna tani ka mid tahay. Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhaxeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dawladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyey. horta systemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo systemka dawladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan male oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. marka waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda waxaan ka hadlaynaa waxa weeye wasaaradda caafimaadku waa daraasay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka. ayagu marka awoodoodu waxay dhaaf weysay dadka agtooda ayaa ku dhintay isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan ee awood. shaqada kale waxay ahayd dawladdii hoose inay qabato qabuurihii waddanka Soomaaliya waxaa kaloo bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoon soo marsin systemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaadaan oo isbitaalka kale hadday keenaan qofka ama dhinta ama uusa dhimanaya haddii la keeno qofka u dhinto waa la rikoor garaynaya. haddii dawladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garaynaya, laakiin waa qarsanayaan qabuurihii bay hore ka aadayan. marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyey. arrinkaasina waa arrin ama cultureka la xiriira ama cudurada dadka ay ka qabeen cudurka la xiriiro wey, ama haddii jira systemka dhan oo waddanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay rikoor geliso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan. Cabdixamiid Warsame cilmi baaraha daraasadan sameeyey ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya
si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19. waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo systemka mase nidaamka caafimaadka inay bulshada loo sheego in testing isbaaris sameeyaan. tan labaad waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada inay dadka iska baaraan in sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. tan saddexaadna waxay u baahan tahay in la maalgeliyo mase investment la geliyo systemka oo surveillance oo caafimaadka sidii oo laga hortagi karo cuduradahan faafaha. dowladda Soomaaliya waxay dhowaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta, taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.